dugsiga sare Al-Irshaad Secondary School ee caasimadda Somaliland Hargeysa ayaa maanta si weyn uga qayb galay soo dhaweyntii ballaadhneed ee loo sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo muddooyinkii ugu dambeeyay safar shaqo ku joogay isaga iyo wafdi uu hogaaminaya arrigaasi Mareykanka maamulka sare ee dugsigaasi iyo sidoo kale ardayda wax ka barata dugsiga Al-Irshaad Secondary School ayaa iyagu ka qayb galay soo dhaweynta Biixi loo sameeyay waxaanay mid ka mid ah maamulka dugsiga sare Al-Irshaad oo isagu si gaar ah ula hadlay telefishinka Ariel ayaa waxa uu ka warbixiyay soo dhaweynta ballaadhan ee ay u sameeyeen isla markaasina ay kaga qayb qaadanayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta ka soo degay gegida diyaaraduhu ka haadaan kana soo degaan ee Cigaal International Airport ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa soo dhaweynta madaxweynaha erayo kooban ku cabiraya waxa uu yiri halkan waxa lagu soo dhaweynayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi anigu waxaan ka socdaa dugsiga sare Irshaad oo gabi ahaanba halkan maanta ku sugan ardaydiisii macallimiintiisii iyo maamulkiisii oo si diiran u soo dhaweynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kaasoo guulo badan ku soo hooyay waftigii u baxay iyo isaguba Mareykanka isla markaasna doonay inay dalka Somaliland ka soo dhaadhiciyaan qadiyadiisa iyo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland in laga keenay meel fog isla markaasna uu u baahan yahay in la siiyo xorriyadda isla markaasna uu noqdo dal adduunyada laga aqoonsan yahay calankiisuna uu ka taagan yahay adduunyada daafaheega kala duwan waanu ku soo guuleystay madaxweynaha qaranku waxyaalo badan oo madaxweynihii abud ugu horreeyay ee soo dhameeyay isla markaasna si heer sare ah loogu soo dhaweeyo Mareykanka isla markaasna soo hooya guulo badan halkan ummadda Jamhuuriyadda Somaliland maanta dhammaantood waxay bogaadinayaan bashbash iyo barwaaqo u dirayaan madaxweynuhu wanaagga iyo himilada fiican oo ummaddiisa uu horkacayo isla markaasna waxaan leenahay madaxweyne waxa tahay madaxweyne qarannimada iyo ummadda tan xorriyaddeeda isla markaasna wax badan ogaa u soo dhintay u soo dhibtooday xorriyadda Somalilandna u sharaxi karaa adduunyada kala duwan isla markaasna Mareykankii markaan dhageysanay doodaadii markaan dhageysanay waxyaalihii badnaa ee aan kala soconay miidiyaha waxaad noqotay dhammaan waxyaalihii ummadda Somaliland ka guuxay oo dhan mid ka dhaweeya markaasi waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow gacmadii reen ku soo dhawow sidoo kale waxaan ka tirsanahay dallad la yiraahdo horseed isla markaasna madaxweyne ahayd dallad in badan la soo shaqaystay isla markaasna madaxweynaha dhammaan dalladda horseed waxay ugu bogaadinayaan horumarkii uu gaadhay iyo wanaaggii uu qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ku hagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفزيون Ariel Hargeysa